Isnidaamiska waa xaalad qofku uu wajahayo xajiin mise cuncunid. Waxaa maqaarka laga dareemayaa xajiin daran. Xaaladani waxaa keena noolaha parasite-ka noociisa lagu magacaabo Sarcoptes scabiei. Afka qalaad waxaa isnidaamiska lagu yiraahdaa scabies mise 7-year itch. Isnidaamiska wuxuu ku dhici karaa qof kasta iyo da' kasta, kumana xidhna deegaanka iyo dhaqaalaha qofka haysta. Calaamadaha lagu aqoonsado waxaa ka mid ah cuncun, waa calaamada ugu caansan. Firiiric mise finan yaryar oo biyo ku jira. Waxaa inta badan finanka ay ka soo muuqan karaan marka loo eego dadka waaweyn. Faraha laba dhexdooda, curcurka, suxulka, kilkisha, jilbaha, calaacalaha cagta, hareeraha naaska, barida, halka carruurta ay ka soo muuqdaan madaxa, calaacalaha gacanta iyo lugta. Haddii horey kugu dhacay isnidaamis, waxay calaamadaha ku soo muuqan karaan maalmo gudahood, laakiin haddii ay tahay marka kugu horeyso, waxay calaamadaha qaadan karaan 6 asbuuc. Wuxuu ku fidi karaa mise ku faafi karaa muddo kooban. Waxaa la isugu gudbin karaa inaad maqaarka ku taabato maqaar kale oo qaba isnidaamis, inaad qof qaba isnidaamiska la wadaagto waxyaabaha gaarka ah sida dharka iyo sariirta, habsiinta, galmada. Waxaad u baahan tahay inaad dhakhtarkaaga la kulanto haddii aad isku aragto calaamadaha isnidaamiska. Waxaa jira xanuuno kala duwan oo keeni kara cuncun, sidaa daraaddeed wuxuu dhakhtarkaaga kugu saacidi karaa inuu kuu sheego waxa cuncunka kugu sababay iyo dawooyinka kugu habboon. Sida ugu wanaagsan looga hortagi karo isnidaamiska waa inaad meel isugu keento dharka faamiliga oo dhan, kadib aad ku dhaqdo biyo leh kul iyo saabuun. Inaad alaabadaha aan la mayri karin isugu keento meel ka baxsan guriga, kadib aad ku hayso muddo 3 mise 4